ودادك أيضا حنونكي أدون كودن وكغيلين كورونا وهيو بالرمضان وبالعبادة يكجيان كوف تغالي سكتشتو أيها هدنا فتحادانتي وهون مرحلة كمدة وهذا غسارة رنتي وح أما النفقة أما مال وغسارة ولا تابن كرو ولي مينا المرة ولهان جوغ بلدوين وإنتاسا إيغا مغنيس dadkii waa barakaceen intooda badan magaalada banaankeeda bay degeen oo ay aadeen dabcan adiguna waad soo indhaysay oo waad tagtay meelaha ay dadkaasi ku barakaceen xaaladoodu sidee kula muuqatay baahida ugu weyn ee halka ka jirtana waa sidee waa tagtaba maahe waan joogaa maba ka faaruqin ba hadda aan kula hadlayo xagga ceel jaalle ayaan joogaa daraad waan soo baxay magaalada hoosaan ka soo baxay madaxweynaha ayaa ila joogay oo xalay waan ku laabtay maanta waan soo baxay maba laabaninba intaa waxyaaban waxayni waxaa ka mid ah horta balkow in ruga boliis ciidamadii boliiska ruga aan ka dhex furno ayadoo ujeedku yahay laba arrin in bal security ahaan iyo maaragtay tuugna caska iyo ciidamadu ay ilaaliyaan tan kale ilaahay baa ilaali karaye si aan dadku isugu soo xoomin in maaragtay 100 mitirba ama 50 mitirba xoogaa la kala fogeeyo dadka oo ciidan la dhex dejiyo oo aan dadaalka wadno in xanuunkan wacyigelin ay ku wadaan oo inta la wacyigelinayo intaa waa taa dhinaca kale marxaladooda waxay ku sugan tahay marxalad aad u adag ayay ku sugan tahay dabcan marxalad adag in dadka barakacay ku sugan yihiin baad ii sheegtay maamulka Hirshabeelle oo aad adigu wakiil uga tahay gobolka Hiiraan maxaa gargaara oo ay ilaa iyo hadda u fidiyeen dadkaas muddada 5 maalmooda ee guryahoodii ka maqan ee banaanka jiifa horta Hirshabeelle qolo maqan ma oo focal point halkan uga oo gobolkii gobolkaana waxaan ku caawinayna waxa ka mid ah 13 habeen inaan magaalada ku hoyo aan biyo dhex taagnaa waxyaabahan ku caawinay qayb ka tahay isku day iyo taran hadii waa jirtaa habkee loo maxaa la samayn karayaa ma dhinaca problemku meeshuu ka yimid aan cabiraynaa aadina ma iskoorsada hadda jirtaa laga jawaabaya talooyinka loo yimid oo hadda dabcan madaxweynuhu u yimid qayb ka tahay laakiin weli go'aan hadda aan gaarnay muu jirin hay'adaha samafal dowladda Soomaaliya cid kasta oo caawin karaysa dadkaas dhibaataysan inay garab istaagaan wixii ayna kari karayaan la soo gaaraan wax la taaban karo oo dadkaas oo mug laho dadka wax tara inay la siiso bal ma aha inaan maalin walba iskoorsi ka jawaabin axadii hore oo hadda laga joogo muddo 6 maalmooda madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare wuxuu sheegay in qasnada Hirshabeelle ay ku soo dhacday lacag 1,142,000 ah oo loogu talagalay in lagu gargaaro dadka fatahaadu ay saameysay sanadkii hore baa loogu talagalay laakiin way soo daahday hadda bay timid lacagtaas ilaa iyo hadda meel fagaare ah lagama sheegin guddigii gurmadkana laguma wareejin adigu waxaa tahay mas'uulkii Hirshabeelle Hiiraan u qaabilsanaa lacagtaas maxay ilaa iyo hadda ugu jirtaa qasnada Hirshabeelle Hirshabeelle qasnadeeda way ku jiraysaa Hirshabeelle waa dowladda waddanka state-ka maamuleysay oo hadda haysa lacagta oo keentay iyadu guddiga gurmadkana in loo dhiibaana dhibaato kama jirto oo shalaba waa loo dhiibay kuwa hore inaan loo dhiibinna dhibaato kama jirto shardi maaha in loo dhiibo cid kalea loo dhiibi karaa wasaaradaa loo dhiibi karaa 6 maalmood ayay dadkii barakac ku yihiin meel aan guryahoodii ahayn lacagtiina qasnadii bay ku jirtaa maxaad ula daahdeen oo aad lacagtaas halkii loogu talagalay aad u gaarsiin weyseen muddadaas waa su'aal fiican laakiin waxaa Soomaalidu waxay tiraahdaa geedka orod lagu fuulo orodaa looga degaa wuxuu waa dhaqaale waa cunto dhinacee loo baahan wixii sarfay u baahan yihiin dadkii meelo badan u kala qaxay haddii waxaan isku darnay guddi maamulka ah iyo guddi hay-adaha ah ayaan isku darnay sarfay soo sameeyaan wareega waxaan rabnaa inaan waxaan dhabta ah markaan ogaano aan wax qaybino ayay dabcan ku fiican tahay intii qolana koox meel degtana wax la siiyo koox meel degtana ay qado xoogaa waa laga yar qurxan yahay guddiga gurmadka fatahaadda ee beledweyne oo iyagu dhibaatadan ka dhawaajiyey oo dunida gaarsiiyey markii horena iyaga inta isxilqaamay howlo moos ah oo ay biyaha magaalada kaga moosayeen ku guda jiray waxaan maqlaynaa in xoogaa madmadow uu soo kala dhex galay iyaga iyo maamulka ama kan gobolka ha ahaado ama kan Hirshabeelle ha ahaado
arrintaas ma jirtaa? maya aniga maamulka gobolkana madaxa maalmihii aniga la isoo magacaabay guddiga madaxda ugu sarreysa ayaan u yeeray waxaan idhi broblemkana jira see wax u qabanaa waana soo dhoweeyeen waxay hayeenoo dhaqaalahana waa ii sheegeen inaan wax qabanaan u soo jeedinay inaan biyaha fatahaadda wajahnaan u soo jeediyey si toosaanu wada shaqaynaynay wax dhibana isku maanaan qabin wandhayna wax isku maanaan qaban. waan la socdaa in laftirkaaga aad ammaanaysay guddiga iyo hawsha ay horey u qabteen. waxaa jira warar laysla dhex marayo magaalada beledweyne iyo guud ahaan gobolka hiiraan oo sheegaya inay suurtagal tahay in maamulka hirshabeelle uu guddi kale ka garab dhiso midka hadda shaqaynayey kaana uu ku wareejiyo lacagta uu hayo. arrintaas ma jirtaa maadaama aad guddoomiyihii tahay? noo xaqiiji warkaa inuu jiro iyo inuu yahay war ku tiri kuteena oo aanay waxba ka jirin. hadduu jiro waa waxaan moogahay war aniga aan haya ma aha contradiction hadda xitaa madaxweynaha iyo guddigii horeana ma maqan. suurtagal ma tahay lacagtan sida aadba hore uga dhawaajisay in aanan guddigan lagu wareejin oo guddi kale loo dhiibo? horta wax dhici doono waa cilmi qayb laakiin hadda problem keeni kara arrinkaas mana maqal mana qiyaasi karo. ugu dambayntii madaxweynihii hirshabeellena waad wada joogtaan oo hawsha waad ku wada jirtaan si arrintu ay daahfurnaan u noqoto oo wax la wada arkayo oo la wada ogyahay ay u noqoto goormaa laga yaabaa in lacagtaas qasnada laga soo saaro oo dadka wax loogu qabto oo guddigan shaqaynaya lagu wareejiyo? walaalkii horta hal shay adiga inaad macnaha fahamtaa ila fiican lacagta in guddigii hore maamulo iyo in wasaaradii maamusho iyo in problem maaha. waxaa nuxur ku yahay dadkii goormay gaaraysa dadka fatahaadii sanadka horaa loogu jiro laakiin waxaad ogaataa in inta laga wareejiyo maaha go-aan laakiin waxaa loo isticmaali karaa in la yidhaahdo xalka waare qayba ka noqoto. laakiin wasaarad baad ku soo celcelisay waxaan ogsoonnahay marka ay siyaasad timaado oo hay-ad siyaasiya ay noqoto iyo marka ay guddi madax bannaan wax maamulayaan in ay kala kalsooni badan tahay shacabkuna ay ku kala kalsooni badan yihiin cidda maamulaysa. marka ay dhibaatooyin sidan oo kale dhacaan guddiyo madax bannaan baa la magacaabaa oo iyaga maamula sida ka dhacday muqdisho sida ka dhacday puntland sida hiiraan laftirkiisaba ka dhacday. tusaale hadda hiiraan yaa madaxweynaha magacaabay soo maha marka madaxweynuhu markuu magacaabayana oo dadkaas fiican xulayana nin fiican buu ahay marka kalema nin kale noqonaya. guddi haddaad maqasho waa wax hawl soo qabanaya micneheedu maaha inay nimanka odayaasha oo ganacsatada waa niman saaxiibanahay waa niman sharaf leh maaha inaan laakiin waxaan ka hadlaya waxay adiga inaad xoogaa waxaad moodaa in loo guddiga cidi ka carari mayso shalaba waa loo dhibi maantana mid bay hayaan inta kale loogu daraana waa sax qof kalena waa loo dhibi karaa cid kalena waa loo laakiin shardigu waa lacagta maxaa lagu qabanaya. kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeeto cusmaan oo u warramayay